horkacay ingiriis horkacay waka ifkii aqoonsigu bixee irbahadeen adkaysano waka ifkii aqoonsigu bixee irbahadeen adkaysano abtirsiimaya eednay qabi iska dhaafo dadyo ayeen masuurursana abtirsiimaya eednay qabi iska dhaafo dadyo ayeen masuurursana tahay wax jira asararay ushanay adoba inta ka ilmaynayo ina tahay wax jira asararay arkan dadba ilka xigay ilhow kudaa Somalilanay kudaa calankaygo antirow hadhicin marka ay arkan dadba ilka xigay ilhow kudaa Somalilanay kudaa بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شرف بين نوتها يقدين إنه يسوس خنقنا maanta waftigii jamhuuriyadda Somaliland ee ku sugnaa magaalada Washington ee uu hogaaminayay jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxay la kulmeen guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Congress waxaa aad la soo qaaday arrimaha Somaliland iyo Mareykanka sidii looga wada hadli lahaa runtii waxayna arrintaasi ku dhammaatay si dhaxalgal ah oo labada dhanba isla qaateen wixii fakera ee la isla soo dhigay waxaa kaloo sharaf u ah guul madaxweynaha iyo waftigiisu in isla maanta aqalka senatesku ansixiyeen mooshin ay kaga dalbanayaan xukuumadda qaabkii Somaliland iyo Mareykanku u wada shaqayn lahaayeen inay warbixin rasmi ah ka keenaan wayna sii socon doonaan shirarku horena waa u jireen marka la isku soo ururiyo inta aan markhaatiga ka nahay dhammaan shirarka sii socday ee ka dhacay dalkan aanu joogno iyo kuwa dhacayaaba waxay u egyihiin kuwa u hogaaminaya guul ummadda reer Somaliland meel kastay joogto waana runtii arrin la odhan karo waa markii koowaad ee arrin sidan u taxana ah iyo shirar daqiiqad u kala baxaya ay Somaliland ku kala bixiso dalka Mareykanka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ummadda reer Somalilandna waxaan la fariintaa leeyahay shirkan ama safarkan madaxweynuhu hogaaminayo waa safar runtii meel dhalay waxaadna ka arki doontaan natiijada dambe iyo taariikhda soo socota
aad iyo aad baan idin salaamay.